بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مطبخ منى maanta waxaan sameyneynaa the best French toast waxa weeye quraac faransiiska caan ku ah oo la yiraahdo pain perdu af English lagu yiraahdo French toast marka insha Allah yadaan sameyneynaa waa rooti aad u macaan quraac aad u fudud oo aad ka heli doontiin insha Allah so let's go marka ugu horeysa waxaan u baahanahay 2 miro beed ah ama ukun ah laakiin tabcan haddaad badan tihiin idinku family badan tihiin beedka double baad ka dhigi kartiin 4 ama 6 caanaha oo badan kartiin insha Allah cinnamon kan ku daray oo badan kartiin insha Allah marka 2 miro beed ah ayaan waxaan ku riday ama ukun ah blade-ka waan yara qasaya firgeetada ku waxaynaya kadibna waxaan ku darayaa insha Allah koob rubac koob quarter of cup oo ah caano marka caanuhu maaha muhiim inay kuleyl noqdaan ama qabow noqdaan waa iska caadi marka caano quarter ku daray waxaan kale ku daray malgacad sonkor ah aad aragtiin taa bunida ah taa cadaan kana isticmaali kartiin waxaan kale ku darayaa vanilla extract ka ma aha khasab inaad ku dartiin macaan yar iyo dhadhan yar bay u yeelaysaa cuntada uun marka waxaan ku daray quarter of a spoon yani in yar far iyo suul vanilla extract ah waxaan kaloo ku daray cinnamon oo ah qorofal madxuun ah qirfa madxuun ah qorofal la budo laga dhigay marka qorofalka aad baan u jeclahay marka malgacad badhkeed ayaan ku daray laakiin haddaad aad u jeclayn waad ka dayn kartaa wax yar far iyo suul baad ku dari kartaa marka adigu ala xasab saad jeceshahay aad ka dhigan kartaa laakiin anigu kaneelka ama cinnamonka aad baan u jeclahay roolida lagu darana waan jeclahay taan ka sameeyo qorofal quraaca aad arki doontiin videogeyga hadda dib u raacadiin channelkayga ood arkaysiin qorofal quraaca isagana cinnamon badan ama qorofal badan baa lagu daraa oo aad bay u macaan tahay marka waad ka yareyn kartiin idinku haddaad doonaysiin wixii oo dhan waan isku daray imika waan qasay maqlaha ama daawaha waxaan saarayaa dabka in yaro saliida in yar far iyo suul ah iyo in yaro butter ah ama zubda ah zubdaha wuu yara macaaneeya laakiin saliid kaliya waad ku samayn kartaa butter kaliya ku samayn kartaa laakiin labada inaan isku darayaan jecelahay kadibna dabka markaad xoogaa u yara diirisid waad yara gaabinaysaa sayna roodhida u guban roodhida ayaad dhex gelinaysaa beedkii aad qastay you can soak it hadaad doonaysid waad radin kartaa waad ku radin kartaa yani intaad roodhida dhex gelisid baad ku yara dayn kartaa 1 minute or 2 minutes haddana waad rogaysaa 1 minute or 2 minutes markaa si fiican bay beedku dhex gelaysaa laakiin anigu ma jecli inaan radiyo saa darteed labada dhinac un baan hal mar ku ridaa kadibna waan ka saaraa maqlaha ayaan saaraa mid kastaba 1 minute ama 2 minutes bay dhinaca oolaysaa kadibna waad rogaysaa dhinac kale si uu bun u noqdo dabka muhiim ha laga gaabiyo sayna u guban waana diyaar quraacdii maasha Allah intaasay ka kooban tahay kaliya wax weyn ma aha caruurta kaligeed iyaga samaysan kara qofka kaligiis isaga samaysan kara markaad samaysiinna oo dabka ka wada saartiin roodhida waxyaabaha aad jeceshahay ayaad dusha kaga dari kartaa ama sideeda ayaad ku cuni kartaa koob caano intaad ku cabtid bismillah badanaysaa haddii kalena toppings kala duwan sida muuska ama strawberry ama raspberry ama blueberry ama kiwi ama avocado waxaad jeceshahay ayaad dusha ka saaraysaa waxaad kaloo ku dari kartaa haddaad doonaysid malab ama maple syrupna hore waa inii soo sheegay waa geed baa laga sameeyey geed yaro fiican oo marka waa sonkor dabiiciya oo macaan dabiiciya weeye marka maple syrup baad ku dari kartiin ama malab baad ku dari kartiin dushana waxaad doontiin baad ka saaran kartiin sideedaad ku cuni kartaa waa iska yara culays quraacdaasi waana macaan waana fudayd caruurtuna way jecel yihiin badanaa weliba strawberry-ga ayay ku jecel yihiin iyo muuska laakiin blueberry iyo raspberry-na laftigooda waa ku macaan avocado waad ku dayi kartaa kiwi waad ku dayi kartaa haddaad doonaysid ananas mango waxaad doontid oo fruits ka mid ah waad saaran kartaa so inshallah barakallahu for watching inshallah see you next time assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh